waxa ugu qaalisan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dal haysto ama dad haysto waa bil aadanka waxa weeye walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan maanta adduunka yaala ama haado elektroniga haado ama teknolojiyada haado ama hantiha haado waxaas oo dhan waxa ka qaalisan qofka bil aadanka waayo qofka bil aadanka waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka bil aadanka waxaan oo dhan waxa sameeyay qof bil aadana sameeyay ummadi dal wuxuu haysto waxa uu qaalisan waa dadka weeye dadkaas hadaba dadkaas waxay ku xiran tahay marba sida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida loo tarbiyeeyo iyo sida uu soo baxaan ummadda waxa weeye meesha ugu muhiimsan waxa weeye tarbiyada caruurtu meesha ugu muhiimsan waa hooyada beesha soo saarta ummadda warshada soo saarta waa hooyada maanta haday warshad product ama muntaj soo saaraso wax soo saaraso markay waxa soo saarto waa la hubiyaa haday wax cabitaan soo saaraso waa la dhalamiyaa waa la tijaabiyaa haday mariya soo saaraso waa la hubiyaa haday noqon weydo dib baa loo hagaajiyaa wixii la rabay waa la soo saaraa hadii kale waxaan uma shaqeynayaan walaalayaal saasoo kale waxa la rabaa ummadda iyo awlaadina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuuna amray inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tarbiyada caruurta waxa weeye in la soo saaro qof kaamil oo dhameystiran diinahan iyo duuyahan qof dhameystiran in la soo saaro sida qofka loo soo saaro tarbiyadu waxay ka bilaamataa marka hore inta hooyada inta guursan bay tarbiyadu ka bilaamataa oo Ilaahay subxaanahu wa nabiga sallallahu alayhi wasallam soo xadiis saxiix ah uu sheegay wuxuu leeyahay haweeneyda waxa lagu guursadaa afar shay limaaliha xoolaheeda ama quruxdeeda ama nasabkeeda ama diinteeda nabigu wuxuu ku dambeysay diinta ku dooro tarbataad gacanta ku qabso diinta leh diintu walaalayaal waxa weeye waa shayga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo arrimaha kale oo dhan ka galyeelay haday diin iyo wax kale ay wadato ama quruxna ama maalna kaba si wacan waa khayr lagu daray laakiin shayga la rabo haweeneyda sidaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu haduu gabadhiina ka soo doono qof diintiisa iyo dhaqankiina ka raalitiin kaana siiya sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam yana dumarkina u dardaarmay dumarka walaalayaal waxa weeye hooyadu waa madrasad haday waxayna dadaarisaa shacabku beeshu ka soo baxa weeye walaalayaal marka waxa loo baahan yahay walaalayaal qofku markuu doonayo inuu guursado inuu haween saalixada guursado soo tarankiisa iyo tarbiyadiisa u hagaagto waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu taas dardaanka koobaad diinteenu fartay tarbiyada waa kaas ka labaad walaalayaal hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka saalixaadka isguursada ama dadka isguursada Ilaahay awlaad siiyo waxa laga rabaa awlaadda inay tarbiyayaan وأولادا الله سبحانه وتعالى سيئ إن التربيان أو كتربيان الله سبحانه وتعالى دين تيسا وحال ربا ولا ليال قفك إن لو قدس التوحيدهان يعقيدهان ما أنتو حاجرة في دنوين بدن ورهي قلبات كي ناسو ملاقيان بيالا بدن بحالا وضوضطو تكنولوجيات وحيالا بدن ومدى دين تودي رقم كودا لقى في سهادين وحيالا هاس وإنا إلهي عرورتنا كتربينا oo waxa wanaagsan aynu ka furnaa iyo waxyaalaha wanaagsan ee la isticmaalo oo aynu dhaqankooda hagaajinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mas'uuliyad buu qof walba saaray waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga rabaa qofku waxa uu maanta adduunyada ku gaajoodo waxa ka daran ilmaha marka qofku caruurta in wax la siiyo oo gaajoon waxa ka daran in baritu aakhira lagu cadaabo maanta qofka reer miyiga geelisa iska dhaqanaya Ilaahay diintiisa u hagaajiyay يا كبروفيسور كاي إلهي سبحانه وتعالى دين تسكحون تهاي ودين ده أنا كل رقمين واحد داما كم يجوا جواي كم بروفيسور على علمه برتي صد سنين كل سنة ولا أو كل شيء قيسته لكن كرجل ترى على صد سنين نسكر رفاض إلهي سبحانه وتعالى آخرتني السجيو وحال ربا ولا ليال إنه نصوص صار له ضد إلهي سبحانه وتعالى ضد كمان تنبدل لها ضد النقطة ومدى قوة وحطها ضد نقضاء إلهي سبحانه وتعالى ومد wax ka bedela waxa soo saarayna walaalayaal waa labada waalid waa macallimiin way waxa rabaa walaalayaal in